maalin wanaagsan saaxiibada ku xiran janalkeena YouTube ee Galka Media iyo sidoo kale barteena Facebook ee Galka Media. Waxaan maanta warbixinteena Galka Media diiradda ku saari doonaa xog ku saabsan xafiiska Farmaajo isku weedaariyeen ciidamo taabacsan ra'iisul wasaare Roble iyo Farmaajo uu xaalku aad uga xun yahay. Maxaa soo kordhay? Ma dhaba in ra'iisul wasaare Roble xilligan uu la soo baxay geesa cusub oo lagu hardinayo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Maxaad kala socotaa khilaafkan halka uu daaran yahay? Tallaabo ceenkee ayaa laga filayaa dhanka Villa Soomaaliya? Roble muxuu qorsheynayaa? Ma dhaba in waraaqo kale oo xilka qaadisa uu sameyn doono qayb ka mid ah taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliiska? Balse inta aan u gudagelin xogahaasi oo faahfaahsan, marka hore barteena YouTube ee Galka Media subscribe dheh, sidoo kale like iyo follow dheh page-keena Facebook ee Galka Media. Warbixintana uu sii share gareeya saaxiibadiina kale. Mahadsanidin. Waa tahay haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee dhanka markaa xilligan xogaha na soo gaaraya, mar kale waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka ka dhashay xilka qaadista taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble, salkana ku haya dilka loo geystay Ikraan Tahliil Faarax oo lagu tuhmayo dilkaasi hay-adda NISA. qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya laguna baahiyey warbaahinta dowladda, inkastoo markii dambe laga saaray qoraalkan sida la sheegay amar ka soo baxay ra'iisul wasaare Roble. waxaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada, la taliyaha amniga qaran iyo kusimaha hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka. maxaa dhacay intaa kadib? madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ayaa sheegay in uu markaa aqbalay istiqaalada uu soo gudbiyey agaasimaha hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo uu markaa shaqada ka joojiyey Roble. qoraalka Villa Soomaaliya ka soo baxay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu Farmaajo markaa u magacaabay gaashaanle sare Fahad Yaasiin markaa in uu markaa noqdo la taliyaha amniga qaran, sidoo kalena Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey oo haatan ah taliyaha nabad-sugidda gobolka Banaadir inuu si kumeel gaar ah u hogaamiyo hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka inta laga soo magacaabayo taliyo cusub oo ku yimaado hab waafaqsan sharciga dastuurka kumeel gaarka ee dalka. madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ayaa sidoo kale Fahad Yaasiin waxaa markaa xilligan la filayaa in markaa xilal kale uu ka soo muuqdo sida uu qorshayaal badan u wado xilligan, gaar ahaan liisaska markaa ee la soo saari doono aqalka sare ee Hirshabelle, sidoo kalena xubno badan oo isagu u watana ay ka soo muuqan doonaan halkaasi. intaa kadib waxaa markaa warqad ay ka soo baxday dhanka xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo isagu markaa xilligan si adaga uga hadlay tallaabada uu qaaday madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday. waxaana xiisadan si weyna looga dareemayaa magaalada Muqdisho in ay ka taagan tahay. xaalka ayaa isbedelay. Roble ayaa ciidamo culus waxa uu geeyey warbaahinta qaranka. dhinaca markaa warbaahinta dadka ka soo gelinaya madaxtooyada ee wariyaasha wakiilka ugu ahaa ayaa guud ahaanba laga saaray barta Facebook ee halkaasi ay wax ka soo gelin jireen. tallaabada Roble ayaa u muuqata mid markaa lagu soo afjarayo awoodaha xilligan uu isbiday madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kiisaska soo baxayo ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah in madaxweynaha xilligan uu tuhun aad u badan uu ku abuuray dhanka shacabka Soomaaliyeed, taas oo marka loo fiiriyo ay tahay guud ahaanba in ay shacabku shaki ka muujiyaan tallaabooyinka xilligan uu ku difaacayo madaxweynaha Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. balse xilligan waxa ay iyagu markaasi sheegeen in 18 bishan aynu ku guda jirno Fahad uu markaa golaha amniga u soo gudbin doono warbixin. yaa loo soo gudbinayaa oo amnigiiba asaga ayaa mas-uul ka ah? sideese ayay ku dhacaysaa ayay leeyihiin dad badan oo arrintan markaa si gaar ah isha ugu hayay. Roble kulamadii uu la qaatay Farmaajo intooda badan waa uu ka biyadiiday in la baabi'iyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax,
waxaana xilligan uu markaa ku helay taageeradii ugu badnayd gaar ahaan beesha ay ka dhalatay ikraan oo ra'iisul wasaaruhu ku ammaanay inuu xilligan wado si dardar leh sidii ay cadaaladda u heli lahayd ikraan tahliil qoyskeedana ayaa mar walba waxa ay sheegeen ikraan inay garab taagan yihiin ra'iisul wasaaraha taas oo marka loo fiiriyo xilligan dagaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kor u sii qaaday haddaba sida aan horudhaca idinku sheegnay ciidamadan maxay yihiin sida aan wada ogsoonnahay xafiisyada ay ku shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ma kala foga sida la soo warinayo oo waxa isku jiraan ilaa iyo ku dhowaad 200 oo tallaabo taas oo marka loo fiiriyona ay tahay in Rooble xilligan uu markaa xagaldaacin weyn uu ku jiro gaar ahaan marka loo fiiriyo inuu iska ilaalinayo inay qorshayaal dila u maleegaan Farmaajo iyo kooxdiisa waana tan keentay sababta ahi in ciidamadaasi guud ahaanba xafiiska Farmaajo isku weydaariyaan si looga hortago qatarta ay u maleegayaan Rooble ra'iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale qoraalka uu soo saaray xalay xilli dambe waxa uu markaa ku sheegay in markaa madaxweynuhu uu wali markaa wado qalqalgelinta arrimaha doorashooyinka sidoo kalena uu caqabad ku yahay doorashooyinka dalka taas oo uu markaa dowlad goboleedyada xubnaha beesha caalamka ugu baaqay inay il gaar ah ku hayaan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday haddaba tallaabo ceenkee ah ayaa la filayaa dhinacyada beesha caalamka ee xilligan iyaguna markaa shirar gaar ah ku yeelan doono xarunta xalane ee ay markaa wakiiladu degan yihiin sida la soo warinayo Rooble maanta waxaa lagu wadaa in dhinacyadaasi uu la kulmo kalana hadlo caqabada markaasi soo wajahday gaar ahaan dhanka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday uga imaanayso taas oo marka loo fiiriyo noqonayso caqabada doorashooyinka uu xilligan ku yahay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba mustaqbalka siyaasadeed ee Farmaajo marka aynu fiirino waxa uu xilligan markaasi wadaa sidii uu qalqal uga abuuri lahaa arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale arrintan waxa ay tahay mid markaasi laga yaabo in beesha caalamku tallaabooyin degdeg ah ay qaado sida dhinacyo badan ay xaqiijinayaan haddaba khilaafkan doorashooyinka muxuu xilligan ku sababayn karaa ama kaalin intee in leeg ayuu caqabad ahaan ku noqon karaa sida aan wada ogsoonnahay ra'iisul wasaare Rooble maalmihii dambe arrimaha doorashooyinka waa uu ka seexday marka loo fiiriyo kiiskan iyo waliba xaaladan taagan oo meel adag xilligan maraysa taas oo la rumaysan yahay in ra'iisul wasaaruhu si kale uusan uga mashquulin arrimaha doorashooyinka ee dalka sida la wada ogsoon yahay doorashooyinka guud ahaan iyo amnigooda waxaa mas'uul ka ah ra'iisul wasaare Rooble sida qoraalka markaasi ku caddaa dhanka Farmaajo ka soo baxayna waxaa muuqata in wali uu markaasi caqabad ku yahay arrimaha doorashooyinka haddaba kiiskan iyo waliba Farmaajo maxaa ka dhaxeeya marka aynu dul istaagno kiiskan oo sida la ogsoon yahay Fahad Yaasiin xilligan arrinteedu markaa isagu ay ku soo biyo shubatay waxaa la aaminsan yahay in haddii Fahad maxkamad la saaro madaxweynuhuna uu lug ku yeelan karo sida ila xog ogaal ah oo ka tirsan xafiiska madaxweyne Farmaajo ay xaqiijinayaan balse ka gaabsaday inay magacooda nala wadaagaan sidoo kale qoyska Ikraan ayaa maalmihii dambe waxa ay digniin adaga u jeedinayeen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo looga digay inuusan caqabad ku noqon cadaaladda loo raadinayo Ikraan tahliil midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale iyaguna qaadanaya kulamo gaar ah oo arrimahan soo kordhay looga arinsanayo sidoo kale qoraal ay soo saareenna waxa ay ku taageereen ra'iisul wasaaraha Rooble xilligan shacbiyadda ugu weyn ayuu Farmaajo ka haystaa ayay leeyihiin siyaasiyiin badan oo aan xiriiro kala duwan la sameynay arrimahanna aan wax ka weydiinay haddaba marka aynu fiirino xaaladan soo korodhay iyay kula tahay inuu ku saxan yahay fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag sidoo kale maxaad u rajaynaysaa ehelka Ikraan Tahliil Faarax oo ah markaa khilaafkan halka uu ka bilowday sidoo kale isla afkaartaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga warbixintanna u sii sheer garee saaxiibadaada kale sidoo kale mar kale waxaan idin leenahay hanaga ilaawina inaad subscribe tiraahdaan
barteenna YouTube ee Galka Media si aad markaa ay kugu soo dhacaan warbixinada aan halkan soo gelino. Gambaleelka furo oo rukumo channelka Galka Media, like iyo followna inoo dheh page-keena Facebook ee Galka Media. warbixintana u sii share garee saaxiibadaada kale. mahadsanidin.